Soomaaliya ayaa maanta weyday sargaal muhiim u ahaa dib u dhiska iyo curashada ciidan Soomaaliyeed oo ka madax bannaan colaadihii sokeeye ee la soo maray. Sargaal lahaa nooc kasta oo ciidan iyo hogaamin ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan xoogga amni ee Soomaaliya ee la dhisayay sanooyinkii la soo dhaafay. Allahu raxmadee Generaal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole ayaa ahaa foolaad soo iftiimaya oo ay ku dayanayeen saraakiisha dhalinyarada ee sanadihii la soo dhaafay sida xooggan uga mid noqonaya noocyada kala duwan ee ciidanka Soomaaliya. Si xoog leh ayuu u soo shaac baxay magaca iyo muuqiisa markii la dhisay ciidamada la dagaalanka argagixisada qaybtooda booliska gaarka ee Haramcad, kuwaas oo ay 2017 dowladda Soomaaliya ka codsatay dowladda Turkiga inay u tababarto, yoolkuna ahaa inay la dagaalamaan kooxaha nabadda diidan. intii uu hayay hoggaanka ciidanka gaarka ee Haramcad, waxa uu si baaxad leh u maamulay howlaha amniga. magaca ciidankan ayaa ka mid noqday kuwa ugu ballaaran ee Soomaaliya laga yaqaano si ka degdeg badan filasho kasta. ciidankaas ayaana noqday kan loogu kalsoonida badan yahay marka laga hadlayo noocyada ciidamada dalka. sugidda amniga ee caasimadda ayayna ka qaateen doorka ugu ballaaran. waxay 80% hoos u dhigeen ficiladii argagixiso ee gelidda goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan. haddii ay dhacdana waxay ahaayeen ciidan aysan saacado ku qaadan inay soo afjaraan kooxaha argagixiso oo hawshaa loo tababaray. tayada hoggaaminta ee Generaal Farxaan Allah u naxariiste waxaa bannaanka soo dhigay weerarka hotelka Xayaat ee dhawaan dhacay oo markii taliska Niisa ay amreen inay ka baxaan Haramcad ay kaliftay in 30 saacadood argagixisadu haysato goobtaas. dibna mar kale ciidan uu watay Farxaan loogu yeeray oo ay u soo afjareen. siyaasiyiinta Soomaalidu ciidankaas waxay mar u arkayeen mid halis oo aysan ku faraxsanayn in dhalinyarada hadda ciidamada loo qoray ay noqdaan kuwa dhiifoon. sidaas oo kale qaar ka mid ah dowladaha diidan dib u dhiska ciidamada Soomaalida ayaa halis u arkaya kobaca ciidankan kana sameeyay dacaayado badan oo been abuur ah. Abriil 2021 Allahu raxmadee Generaal Farxaan waxa uu noqday taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Banaadir. markaas wixii ka dambeeyay waxa si buuxda hoos ugu dhacay ficiladii amri darro ee Muqdisho. xaaladda siyaasadeed oo kacsanayna waxa uu qayb ka qaatay sidii loo dejin lahaa. waxa uu saaxiib dhow la noqday dadweynaha isagoo doorar kala duwan lagu arkay goobaha bulshada, isagoo aan qamin shakiga ay qabaan inta badan saraakiisha laamaha amniga ee ka dhunta dadweynaha. December isla sanadkaas ayuu u soo dallacay marxuumku darajada ciidan ee Generaal, taas oo ay dood ka soo celiyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida oo dhaliilsanaa inuu la shaqeynayo nidaamkii dawladeed ee uu ka tirsanaa. Farxaan in ka badan 3 isku day dil ayuu ka badbaaday intii uu ku jiray la dagaalanka kuwa nabadda diidan. kii ugu dambeeyay ayaana ahaa bishii May ee sanadkan qarax lagula beegsaday deegaanka ceelasha biyaha ee Muqdisho. markasta waxa uu ahaa yool iyo bartilmaameed aysan dhaafin haddii ay helaan dhammaan darafyada diidan inay Soomaaliya hesho dhalinyaro dhiifoon u diyaara wajahidda mustaqbalka dalkooda hooyo, taasoo la aaminsan yahay inay leedahay cadowyo badan. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxo argagixiso. yoolka kooxahan waa in la beegsado cid kasta oo ay u arkaan in mashruuceeda argagixisanimo ka soo horjeedo. saraakiisha da'yarta ee fahansan dhagartooda ayaana bartilmaameedka koobaad ee beegsigooda. waxaa la aaminsan yahay inay taasi wadajir u fuliyaan dhinacyo kala duwan ee shisheeyaha ee diidan dib u dhiska ciidanka Soomaalida iyo unugyada argagixiso. xukuumadda federaalku ma bixin faahfaahin dhaafsan ka tacsiyeynta geerida Allah u naxariistay Generaal Farxaan Qaroole, waxaana la xaqiijiyay inuu ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay deegaan ka baxsan caasimadda Soomaaliya. 2 bilood ee la soo dhaafay waxaa xoogaysanaya hadalhaynta la xiriirta xilka qaadista laamaha amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la filayo in xukuumaddu isku shaandhayn ku samayso, maadaama ilaa hadda aan wax laga bedelin tan iyo intuu xukunka yimid madaxweynaha Soomaaliya. dad badan oo Soomaaliyeed ayaa isla qirsan in Allah u naxariistay Generaal Farxaan uu ahaa qofka ay Al-Shabaab u aaminsan yihiin inuu caqabad ku yahay qorshahooda iyo sargaal sare oo aysan jeclaysanin cid kasta oo diidan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya. hadda duulaanka lagula jiro kooxaha nabadda iyo horumarka diidan ee Soomaaliya ayaa u muuqda mid sii ballaaranaya. dowladduna ay ku gashay qorshe aysan xog badan ka haynin saraakiisha kala duwan ee laamaha amniga ee ciidanka dagaal gelinaya, taas oo iyana halisteeda wadata. qaar ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada ayaa xaqiijinaya inaysan haysan istaraatiijiyad dagaal oo degsan iyo xataa qorshaha ka dambeeya howlgallada ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarab socda. khubarada dhinaca amniga ayaa rumaysan in yoolka ugu weyn argagixisadu ay ka leedahay dagaaladan ay tahay inay beegsato saraakiisha caqabada ku noqon kara qorshahooda
iyo ficiladooda bahalnimo taas oo ay u maraan jid kasta oo ay doonayaan laakiin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka waxa hor yaalla qaadida tallaabooyin ka mug weyn tacsiyeen kulamo la abaabulo iyo sheegidda wararka siyaasadda taas oo ah qorshaha dabargoynta kooxaha argagixiso oo dhammaan ay isla qirsan yihiin ama isku raacsan yihiin dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida ma ogtahay application-ka Baysi inuu kuu fududeynayo inaad lacag u diri karto ehelkaaga adigoo isticmaalaya telefoonkaaga gacanta Baysi waxa isticmaali kara dadka ku nool Yurub iyo Ameerika haddaba kala soo deg App Store-ka ama Play Store